السلام عليكم كسر الفيسبوك بيج كان عبد الحليم علي ومانتا waxaa wareysanaynaa corona virus mudana corona marka koowaad muxuu yahay qabiilkaaga inteena ka soo jeedaa cayladaada qoyskaaga qabiilkayga waxaa lagu magacaabaa virusyada tajka leh qoyskayga ama awooyaasheeda waxay ku noolaa jireen wadanka Shiinaha mudana corona maxaa ay tahay sirta faafitaankaaga aniga oo kiligay ah ayaa galo unuga ku dhawaad 24 saac gudahood ayaa isku badiyaa ilaa ka noqdo 1 milyan maxaa lagu bixiyay magaca ah COVID-19 waxaa laga soo gaabiyay magaca caabuqa coronavirus ee 2019 hagaag goormee ahayd markii ugu horeysay ee aad soo muuqatay waana halkee markii ugu horeysay ee la arkay waxay ahayd 2019 waxaana laga helay magaalo ku taalo dalka Shiinaha oo la dhaho Wuhan gartay marka adiga sidee ku faaftaane waxa raaca dhibaha yar ee ka imaada hindisada qofka qaba coronavirus salaanta habisinta iyo shumiska hagaag mudana corona marka intee ka gashaa qofka caafimaadka qabana jirkiisa waxa ka gala dhowr meelood afka sanka iyo indhaha gartay waa imisa muddada aad isku dhex qarinaysid jirka qofka waxa ku dhex gambadaa qofka 2 ilaa 14 maalin marmarka qaarne 5 ilaa 6 maalmood ayaa kaga soo muuqda qofka maxay tahay hadafka ama ujeedada kaas kugu dhiirigelinaya inaad qofka jirkiisa gashid inteena weerartaane waxa weeraraa habdhiska nafshashada waxaan isku dayaa inaan buriyo hagaag maxay tahay bi'ada aad jeceshahay oo hoyga ku noqotane waxaan jeclahay deegaanka qoyan ee qabow ee leh harka ama hooska hagaag mudana corona maxay tahay astaamaha lagu gartane qandho daal hergab qalalan iyo qofka nafshashada ku adkaato hagaag marka maxaa jeceshahayne waxaan jeclahay cariiriga iyo isdhaxgalka dadka ee nadaafad la'aanta iyo meelaha qabow oo qoyan maxaane neceb tahay waxaan necbahay guriyahoo la joogo nadaafadoo la badiyo iyo deegaanka qalalan adiga ma dishaa qof kasta oo aad jirkiisa gashidne maya aniga dadka qaar waxay iga faafiyeen waxaanan jirin oo been ah 80% dadka ku dhaco way ka bogsoodaan wayna caafimaadaan 17% dadka ku dhaco waxay u baahan yihiin karantiil iyo gargaar caafimaad hase ahaatee waxaan dilaa 2 ilaa 4% dadka ku dhaco maxay tahay sifada uu leeyahay qofka aad dili kartid waxaan dilaa dadka waaweyn ee cayiran ee qaba cudurka sokorta dhikarka iyo cudurada nafsadhiska neefshashada ma ku dhacdaane caruurta yaryar maya waa una xariista caruurta yar hadii jeer waxa badan inta aan ku dhicin cudurka ma ibaraysaa qaabka aan kaaga hortagi karo adi ha dhab ahaantii marka koowaad ku sugnaa gurigaaga ka fogow meelaha dadka isku imaanayaan gacmahaadana si joogto ah u dhaq waa inaad yareysaa wax walba aad taabanaysid mudana corona waxaan ogaanay oo baranay wajigaaga madow ma leedahay waji kale oo cad ha waa leeyahay waji cad waxaana qabtay shaqooyin muhiim ah waxaana kamid ah inaan nadiifiyay deegaanka oo nashfudeeyay inay isla hadlaan qoyska isla sheekaystaan waxa qabtay shaqooyin ay qawoweysay hay'adda caafimaadka adduunka waxaana kamid ah inaan dadka baray nadaafadda qaasatan dadka aan muslimka ahayn mudane corona hadeertaan qalbigaaga ma ku dagayne ha qalbigayga way dagay waxa dadka baray cashir lama ilaawaan ah waxaana burburiyay isla weynidii ee lahaayeen gaalada iyo dhibkii ku hayay muslimiinta ugu dambeyntii maxaa ku dhahaysaa taageerayaasha Cabdi Xaliim Cali ku sugnaada guriyihiina muuqaalkan sheergareeya oo gaarsiiya dadka oo dhan maxaa u sheergareey laadihiin waryaado ha ka baqi mudana corona muuqaalkan waxaa sheergareey doono qof kasta oo daawaday insha Allah